Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada mar kale Somali Arsenal Fans TV. Haatanna waxaa la soo sheegayaa in Martin Odegaard mar dhow laga dhigi doono Arsenal captain, iyadoo weli seasonka uu bilaabanin. 23 sano jirka u dhashay Norway ayaa sidoo kale captain u ah qarankiisa, wuxuuna ku caan yahay creativity ama jaanis abuure sida loo yaqaano, waxaana lagu ammaanay inuu yahay hogaamiye markii uu garoonka ku jiro iyo sidoo kale garoonka banaankiisaba. Wuxuuna ka mid ahaa liistiga ciyaaryahanada loo saadaalinayay inay noqdaan Arsenal captain Aubameyang marka uu baxay kadib. Arsenal ayaa sidoo kale xoojinaysa ka helidda ay ka heleen ciyaaryahanka Benfica u ciyaara left back ee Alex Grimaldo una dhashay Spain, balse Benfica ayaa wax jawaab ah weli laga haynin. Dhageyste, intaa ayuu naga yahay warkeena. Sideed u aragtaa Odegaard in captain looga dhigo? Ma waxaad jeclaan lahayd Kieran Tierney oo Arsenal fans badi ay jecel yihiin inuu noqdo captain? Sidoo kale, sideed u aragtaa Alex Grimaldo inay Arsenal soo iibsato? Waa 26 sano jir experience ah, mise waxaad jeclaan lahayd Zinchenko oo u ciyaara Manchester City maadaama Premier League khibrad gaar ah uu u leeyahay? Intaasba waxaad nagula wadaagtaa commentiga. Fikradahaada kale aad qabtana nala wadaag.